kulanti waxaan dhammaan daawadayaal barnaamijkeena maanta iyo maalinlaha jubba waxaanu ku soo qaadan doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taliyihiisa niisa mahad salaad ayaa khilaaf soo kala dhex galay iyadoo ay macquul tahay in xilka laga qaado afhayeenka kooxda argagixisada ee al-shabaab ayaa war ka soo saaray weerarkii villa rose iyo xog la xiriirta qaabka ay ugu suurta gashay in ay ka gudbaan barkontaroolada agaarka villa soomaaliya gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusmaan ayaa la kulmay dhiggiisa gobolka shabeellada oo dhexe iyadoo ay dhowaan soo ifbaxayeen warar sheegayo inay xifaaltan u dhexayso qabiilada dega labada gobol qodobadaasi ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena maanta iyo maalinlaha jubba inta aanu barnaamijku u gudagelin fadlan noo faafi barnaamijka adigoo islamarkaana ku sheer garanaya asxaabtaada baraha bulshada haddii aad beejkeenna ku cusub tahayna fadlan nugu soo biidh adigoo islamarkaana sabskraib sarayo mahadsanideen aanu ku bilownay xog uu helay wargeyska maalinlaha jubba ayaa sheegayso inuu shaki soo kala dhex galay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo taliyihiisa niisa mahad salaad kadib qaraxii ka dhacay hotel villa rosa kaasoo u dhow xerada madaxtooyada villa soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa bilaabay in uu farageliyo hay-adda niisa iyo baaritaanka weerarka villa rosa sida aan wararka ku helnay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hor yimaaday in hay-adda sirdoonka qaranka ay baaritaan ku samayso weerarkaasi maadaama aanu horey loo arkin weerar noocaani ah kaasoo dhaliyey shaki su'aalo iyo fashil ku yimid hay-adaha amniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isugu yeeray saraakiisha amniga isagoo islamarkaana ka dalbaday inay siiyaan faahfaahin iyo wax uu ku qanci karo su'aalaha uu watay madaxweynaha ayaa ka mid ah sida ay ku dhacday in hay-adda niisa ay ka war heli weyso kana hortegi weyso ka hor weerarka al-shabaab ay ku qaadeen meel u dhow xafiiska madaxweynaha xogta aanu helnay ayaa sheegayso in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu amar ku bixiyey in la diyaariyo warbixin ku saabsan qaraxa iyo mas-uuliyadda cidda ku lug leh taasoo laga sugayo hay-adaha amniga waxaa kulanka ka qayb qaatay taliyayaasha ilaalada madaxtooyada wararka ayaa sheegayo in tallaabo laga qaadi doono saraakiil iyo ciidamo u xil saarnaa ilaalada baraha kontaroolada loona haysto qaraxa hotel rosa kuwaasoo qaar ka mid ah ay xiran yihiin weerarkii hotel villa rosa ayaa dhaliyey cabsi xagga ammaanka madaxweynaha isagoo islamarkaana u xil saaray in maxkamadda ciidamada sare ay baaritaan ku samayso weerarka halka hay-adda niisa ay tahay midda sharciga u leh inay baartaan falalka noocan oo kale ah sida aanu wararka ku helnay maxkamadda ciidamada sare ayaa islamarkiiba bilowday inay fuliyaan amarka madaxweynaha ayagoo waraysi la yeeshay saraakiisha u xil saarneed ilaalada madaxtooyada sidoo kale waxay waraysi la yeesheen taliyaha hay-adda nabadsugidda qaranka mahad salaad taasoo dhalisay in shaki uu ku yimaado kalsoonida uu ku qabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud taliyihiisa nabadsugidda warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in la taliyayaasha villa soomaaliya ay u soo jeediyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud in mahad salaad uusan u qalmin inuu hogaamiyo hay-adda sirdoonka qaranka islamarkaana loo baahan yahay isbeddel lagu sameeyo dhanka kale xisbiga wadajir oo siyaasad wadaagga la ah xisbiga talada haya ayaa la sheegay inay arrintaasi ka soo horjeesteen iyadoo islamarkaana soo ifbaxaya khilaaf iyo kala aaminbax u dhexeeya labada xisbi haddaba dadka faaqideeya siyaasadda soomaaliya ayaa su'aalo ka keenay sida ay al-shabaab ugu suurta gashay in ay meel u dhow xafiiska madaxweynaha ay weerar ka fuliyaan halkaasoo amnigeeda aad loo sugo waddo walba waxaa yaalla barkontarool lagu sugo amniga weliba way adag tahay xitaa in shacabka ay galaan waana sababta keentay in shakiga weyn ka yimaado weerarkaasi dhanka kale afhayeenka kooxda al-shabaab sheekh cali maxamuud raagi cali dheere ayaa ka hadlay weerarka kooxda argagixisada ku qaatay axaddii hotel villa rosa oo ku yaalla meel u dhow madaxtooyada villa soomaaliya cali dheere ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen madax ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya saraakiil ciidan iyo askar walow dowladda federaalka ay sheegtay in dadka ku dhintay ay yihiin 8 qof oo shacaba iyo hal askari sidoo kale cali dheere ayaa sheegay in weerarka ay ku dileen 52 qof halka ay ku dhaawaceen 39 kale ayna dadka ay waxyeelada ka soo gaartay ay ku jireen wasiiro ku-xigeen agaasimo wasaaradeed walow hadalkiisa uu ka hor imaanayo kan dowladda iyo dhabta khasaaraha ka dhashay weerarkooda iyadoo la xaqiijiyey inaysan jirin dhimasho wasiir ama agaasimo dowladeed marka laga reebo wasiir doodisho oo dhaawac fudud soo gaaray ugu dambayntii gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusmaan ayaa jiidda hore ee dagaalka kula kulmay dhiggiisa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyadoo dhowaan ay jireen warar sheegayo in xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan beesha abgaal ay si dadban u weerareen beesha xawaadle kuwaas oo ah beelihii bilaabay la dagaalanka al-shabaab ayagoo islamarkaana sheegay in beel yar oo degta gobolka hiiraan oo dabcan ay kala jeedeen beesha xawaadle ayay sheegeen in si zaa'id ah loo buunbuuniyo ayagoo weliba gacan ka helayo ciidanka xoogga dalka
beesha abgaal ayaa isku dhiirigelisay inay ka bilaabaan dhaqdhaqaaq ka dhana kooxda al-shabaab gobolka shabeellada dhexe ayagoo isla markaana sheegay in dhowaan ay tagi doonaan deegaanka aadan yabaal intaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna maanta iyo maalinlaha juba dhegaystayaasheenna qiimaha badan haddaad su'aalo ka qabto barnaamijkeenna fadlan aragtidaada noogu reeb dhanka kommentiga waxaan isku dayi doonaa inaan kaa qancinno mahadsan idiin anigoo ah ismaaciil kulmiye waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiiso leh nabadeeyo